safarka buurtan oo dhammaystiran waxa uu qaadanayaa waqti dhan 2 bilood. In ka badan 300 oo qof ayaana ku dhintay. Assalaamu calaykum daawadayaal, ku soo dhawaada Raayam Channel. Waxaynu maanta ka hadli doonaa 5 buur ee ugu dheer caalamka. Haddii aad ku cusub tahay channelkan, fadlan subscribe saar si aad ula socotid muuqaalada xiga. Buurta Makalu waxay heerka badda ee loo yaqaan sea level ka sareysaa 8485 mitir, waana buurta shanaad ee ugu dheer caalamka. Makalu waxay ku taalaa xuduudda u dhaxaysa waddanka Nepal iyo dalka China. Koritaankii ugu horreeyay waxaa ku sameeyay buurta Makalu koox ka socotay Mareykanka sanadii 1954, laakiin markii ay kor u koreen 7100 mitir ay dib uga laabteen duufaano daran oo jiray awgood. Markii ugu horreysay ee koritaan dhammaystiran lagu sameeyo waxay ahayd sanadii 1955, waxaana koray oo fiinta sare ee buurta Makalu tagay Lionel Terry iyo Jian Gusi. Lados waa buurta afraad ee ugu dheer caalamka, waxaana fiinteedu heerka badda ee loo yaqaan sea level ka sareysaa 8516 mitir. Lados waxay leedahay 2 fiin oo kale marka laga soo tago tan ugu sareysa. Mid waxaa lagu magacaabaa Lados Middle, waxayna heerka badda ka sareysaa 8414 mitir. Tan kalena waxaa lagu magacaabaa Lados Shar, waxayna heerka badda ka sareysaa 8383 mitir. Buurta Lados waxay diris la tahay buurta loo yaqaan Mount Everest, waxayna ku taalaa xuduudda u dhaxaysa gobolka Khumbu ee ku yaala waddanka Nepal iyo gobolka madaxa bannaan ee Tibet. Buurtan inta la ogyahay markii ugu horeysay ee la koro fiinteedana la tago waxay ahayd sanadkii 1956. buurta Kanchenjunga waa buurta saddexaad ee ugu dheer caalamka, waxayna ku taalaa xuduudda u dhaxaysa waddanka Nepal iyo India. Buurtani waxay heerka badda ee loo yaqaan sea level ka sareysaa 8586 mitir. Kanchenjunga waxay leedahay 5 fiin, waana buurta labaad ee ugu dheer buuraha Himalaya ee ku yaala qaaradda Aasiya. Joy Brown iyo George Brand ayaa ah inta la yaqaano dadkii ugu horreeyay ee kora buurta Kanchenjunga, waxayna koreen sanadkii 1955. Buurtan waxaa loo aqoonsanaa buurta ugu dheer caalamka wixii ka horreeyay sanadkii 1952. Buurta Kanchenjunga waxay 124 kiiloomitir u jirtaa buurta loo yaqaan Mount Everest. buurta K2 oo sidoo kale loo yaqaan Godwin Austen waa buurta labaad ee ugu dheer caalamka, waxayna ku taalaa xuduudda u dhaxaysa waddanka China iyo dalka Pakistan oo ka tirsan qaaradda Aasiya. Buurta K2 waxay ka sareysaa heerka badda ee loo yaqaan sea level 8611 mitir. Buurtan lagu magacaabo Godwin Austen dhinaceeda xiga dalka China ayaa ah dhinacii aad u adag tahay una khatar badan tahay koridiisa. Sidaa darteed, dadku waxay ka koraan buurtan dhinaceeda xigta dalka Pakistan si ay u gaaraan dhuldeeda sare. K2 ama Godwin Austen waa buurta labaad ee ugu dhimashada badan caalamka. Waxaa la sheegaa in dadka koray 4 qofba uu qof ku dhintay. buurta Everest waxay ku taalaa qaaradda Aasiya, waana buurta koowaad ee ugu dheer caalamka, waana mid ka mid ah buuraha Himalaya oo ay ka mid yihiin in badan oo ka mid ah buuraha ugu dheer caalamka. Buurtani waxay heerka badda ee loo yaqaan sea level ka sareysaa 8848 mitir. Buurta Mount Everest waxay ku taalaa xuduudda u dhaxaysa waddanka Nepal iyo gobolka madaxa bannaan ee Tibet. Edmund Hillary iyo Tenzin Norgay ayaa ahay labadii qof ee ugu horreysay ee korta buurta Mount Everest, waxayna tageen fiinta sare ee buurta sanadkii 1953. Safarka buurtan oo dhammaystiran waxa uu qaadanayaa waqti dhan 2 bilood. In ka badan 300 oo qof ayaana ku dhintay buurta Mount Everest xilli ay isku dayayeen inay gaaraan fiinteeda sare. waad ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan. haddii aad ka heshay muuqaalkan like saar si aad u heshid muuqaalada xiga. subscribe channelkan wixii faalo ahna noogu soo gudbi qaybta faalo bixinta. mahadsanid.